maanta halkan waxaan doonaynaa in wax ka nidhaahno dhacdadii foosha xumayd ee ku soo biirtay dhacdooyinkii midba midka foosha xumaa ee aabad moodaysid hadda ugu dambaysa inay noqonayso tii ugu soo xumayd ee ka dhacday sanadka ceelaf weyn ummadaas wax alla waxay ku dhimatay iyo wax lagu dilay midna lama garanayo halkaa waxaa dhintay iminka marka maca dhaawacyadii lagu daro 4 hablood iyo 3 nin ilaahay waxaan uga baryaynaa cid alla intii dhimatay inuu jannaatu firdawsa ka waraabiyo inta dhaawacana ilaahay uu boogadhayo oo caafimaad degdega siiyo ummadda meesha degan waxaan leeyahay dad islaam baa tihiin ayaamay islaamka garanaysaan waxaad moodaa in diintii laydinka siibay dhiig baa wada haliilaysaan ilaahay waxaanu idinka baryaynaa inuu iimaanka idinku soo celiyo oo nabadgeliyo aa qaadataan ummadda ilaahay meeshii laydinka maqlaba waa laga naxayaa iminka waxa idinku sii beeray dad badan oo islaahayn xabaar baa markaa wax laydinka soo sheegay oranyankaan idinku dhacday dhacdadan shalayta dhacday haddaan isdul taago aad ba uga sii fool xumay kuwii hore dhici jiro kuwii hore dad waxbaanu isku leenahay baa isdili jiro ku dhiman jira dad aan iyaga iyo reerahooda toonaya aanay waxba ku ahayn baa tan ku dhintay ujeeddada laga lahaana waxaan umaynaya dee inay tahay uun ujeeddo xayawaannimo oo si wixii horeba u dhacayeen ay u dhaceen ilaahay waxaan leeyahay samir iyo imaan hayna siiyo beelaha kale oo iyagu aan horena wax uga dhiman iminkana waxaasu iskaga dhaceenna waxaan leeyahay dee Nelson Mandela oo aynu odhan jirnay waa gaal baa yidhi samirku waa maalgashi innagana marka saa kitaabka qur-aanka u kala furtid meel walba in allaha maca saabiriin baa ka gata waxaan leeyahay samir ha la qaato xukuumadduna way qabanaysaa wixii ay qabanayso waanay joogtay laakiin sababtaa waxba loo qabanayn waxa weeye haddii qofba intuu baas iska qaato ummad meel joogto indiscriminate uu ku wada furo de sida wax loo qabanayaa way adkaanaysa xukuumaddanu tallaabo badan bay qaaday dhaqaale badan baa ku baxay ayaantii ugu dambeysay markii meel walba la iskaga yimi oo la wada hadlay ayaantii waxa la gaadhay dambe dowladdu waxay soo saartay state of emergency xukun degdega bay soo saartay xukunka degdega intii ka hortagtay ha ogaadaan maanta wixii ay ka hortageen wuxuu ahaa maalintii ugu dhowda tallaabada la qaadiyay buu ahaa intaa ka bacdi waxaan ka hadlayaa 2 qodob waan doonaya in isdul taago qodob waa qolo la yidhaahdo diaspora dibadda joogta inta badan tifiyada ka daawataan clipskaa yararba ka daawataan whatsappyada iyo facebookyada iyagoo ka hadlaya wala waa la dagaalamayaa waxbaa dhacaya caynkaasaa dhacaysa cirkiyo dhulkaa isku dhacaya caynka mana wada xumaa intii imaan kaleed waa intan waddankoodana wax soo gelinaysa iyaguna wax qabsanaya waxa laygu yidhi nin baan la hadlo wuxuu igu yidhi annaga qoladeeda maraykanku kuma jirno dadka meeshaa ka hadlaya waxaanu nahay shaqaale waanu xoogsanaa wax iyaga meeshii saxaana waanu ku bixinaa wixii kalena waxbaanu ku qabsana waa nimanka caydha qaatay yurubu badan ayaan dhaweysto keli baan doonaya inaan idin tuso daawataan oo weliba qof idinka dhex tuso ninkaan idinka dhex tusaya xaafadda iyadoo ahaa waa nin aanu isku da ahayn waxaan idinku dhaaranayaa wejiga ilaahay in diric iyo malkamad ceergaabo lagaga saaray maalintii dagaalkii dhacay
abtigay baa ka saaray nin Ibraahim Xuseen Mataan la yiraahdo waa war ergaab oo dhammood og tahay 200 qof ay soo weydiiyay ninkaas koofiyada bulshada saas dhulka isku la dhacaya waanu dagaalamayna waxbaanu dilayna waxaas u akhriya maalintii baalkaas taagnaana diric baa laga saaray magaalada saa markii looga saaray Ingiriisku tagay wuxuu joogaa 25 sanadood xabad dukumenti ama xabad dukumenti oo meel ku tago hay'ad bacid wala saxda ma soo dhoofi karo ma la iman karo dawladda waxay dadka dhalinyarada meelaha joogtay maqlaysa kuwaana waxbaanu dilaynaa waxbaanu sameeynaa war kuwa wax sameyn karo ma hayay waqti taagan depression ku baala galay waxbaanu dilaynaa waxbaanu sameeynaa yay idinkana maskaxdayda ka xadin noo wax sameyn karo wax qaban kara ma hayay habeen baxaafad seexda inkaartun baa deerahay ka wada waxaan moodaan islaamiyadnimada ku sii yaraanayso dadka meelaha dadka ka soo qaylin oo dhan taariikhda qori doonta ummadda wadanku imika aad bay u degan tahay wax badan bay soo arkeen wax badan bay u soo joogeen wax badan bay isweydiiyaan nimankan waxaan leeyahay haddii ilaahay baa wax siiyey wixina xalaal ku bixi kana daayo ummadda waxana sheegaysa qolada labadan isdul taagayaan waxa weeye qolo meelahan inay joogto intay eegato maana wax dhaceen oo dadka wada naxsan yihiin bay markii meelaha ka helaan TV-yadii nan qaar kamid ah ama meelo kale oo inay markii istaagaan bay yiraahdaan waxa ka dambeeya hebel iyo waxba la qaban waa dawladdu taxsiib u darin ummadda wada shokira bay ka horeeyaan dadna cid bay canaanta kuwaasna waa number 2 iyaguna fidmadan shidiya waxaan leeyahay ilaahay inuu soo celin mar dambe inta hayno uga kaato ummadana waxaan leeyahay iimaankiina dib ugu soo noqda kuwa kale ee meelaha intii wada joogaan hudhalada qaar fadhiyaan qada daaraha dhaadheer fooqyada ku jiraan ee dabka shidiyana waxaan leeyahay ka daayo ummadda waxana ku qadar masaakiinta ummadda sida wada eegtay ku aragteen sida iyo caydnimada haysa iyo busaaradda iyo xabadda ay la ordayaan nooc u egyihiin buu aragteen ka daaya fi aakhirada waxa ka faa'iido meeshaan adii inta ku wantoobi weeyaan waxaan leenahay ilaahu naga qabo waxa sameynaya adiga weyn oo waaxid oo arkaya aad iyo aad u salaamantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh انت مسألة مرة تعزيز على مرة تعزيز على مرة بريدة markii shalay dhibtu dhacaysay magaalada Ceelfooyda waa magaalo aan aad u ballaaranay koox dablaya ayaa soo weerartay gudaha soo gashay dadkii rasaasaysan xukuumadda iyo ciidamaduna way joogeen magaalada oo dhibtan hore u taagnay dadkii may qaban miyaan oran karin waxa jira yani xagrasho dhinaca xukuumadda oo inaan arrinka waxba laga qabanayo sababtoo ah ciidamadii way joogeen magaalada aad baad mahadsantahay ciidamadu way joogeen warinta magaalada dagaalkana waa laba dagaal buu kala yahay dagaalka cidla la isku diray ka magaalada la isku diray ciidamada ummadda magaalada joogto dhan baa waxa ka saaran mas'uuliyad khasaaraha inay sii badiyaan diyaar uma aha ciidamadu inta awoodooda ah way qabteen magaalada la isku dhex dhuntay siyaasi dadka ku baxsadeen iminkana waa la daba jooga dad badanna waa la hayaa wararka dibna waa heli doontaan insha Allah taala mucaaradka iyo qurba jooggaad eedays jeerme waxaan xukuumadda ma haysaano talaabo qaadaysan oo reer waa la qaaday miyaad saashid hore maqlay tawaaba la qabqabtay dad badan baa la qabqabtay waa la soo xidhay kuwii kale waa lagu daba jiraa intay qaadanayso de Allahu yaclam laakiin waa la qaaday markii talaabooyin baa la qaaday badan ayaamaha khayr kale aynu ku jirno waxaan ilaahay ka baryeynaa in ilaahay nabadgelyadeena inoo xafido wixii dhacayna aanay intaan ugu dhaafin baynu ilaahay ka baryeynaa waxaan tacsiir u dirayaa dhammaanba dadkii ku geeriyooday ama ku dhaawacmay shilkii dhacay ugu dambeeyay Ceelfooyn
waxaan ilaahay uga baryayaa wixii dhaawacana in ilaahay bogsiiyo wixii dhintayna in ilaahay jannadii firdowsa ka waraabiyo dhammaanba eheladii iyo shacbigii iyo qaranka jamhuuriyadda somalilandna ilaahay samir iyo iimaan ka siiyo waxaan kale oo bulshada aan reer Ceelaf Weyn ugu baaqayaa inay nabadgelyada ilaaliyaan oo ay nabadda gartaan qiimaha ay leedahay maxaa yeelay qarannimadeennu waxay ku jirtaa midnimadeenna ayay ku jirtaa dib u dhaceennu wuxuu ku jiraa iyo khasaaraheennu wuxuu ku jiraa dhaawaca dhexdiina ka dhacay waxaanu leenahay bedqabka qarankani wuxuu runtii iyo horumarkiisa ku jiraa bedqabka shacabkiina haddii aanu shacabku bedqabin waxa weeyaan qaranku ma bedqabo sidaa daraaddeed waa inaynu ilaashano nabadgelyadiina cid alla ciddii wadda nabadgelyo darrana waa inaynu dhammaanteen meel uga soo wada jeesanaa waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba aan u soo jeedinayaa baaq nabadeed ummaddeennu inay gacmaha iswada qabsato inay kaga hor tagto sidii arrintaa loo dhammaystiri lahaa wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu